Okay, kusoo dhawaada Excel waxyaalaha lagu samayn karo. Excelka horta waa free haddaa leedahay Microsoft account, Hotmail, Outlook, accountyada noocaas haddaa leedahay waa free asoo online a isticmaali kartaa waxyaalo badanna waa ku qabsan kartaa. Marka waxaan rabaa dad badanaa isticmaala waxayna u isticmaalaan lambarada ay haystaan ay ku calculate garaystaan, laakiin waxaa kaloo lagu samayn karaa waxyaalo kaa maqana Excelka intaa u sheegtid su'aalo jawaabteeda uu ku siinaya adoo adeegsanaya formulooyin. Okay, hadda waxaan rabnaa inaan helno rate percentage ahaan maaragta aan rabnaa nala ka dhimay alaabtana original price waa kana, biilkii aan bixinayna waa kana, maxaa nala ka dhimay maaragta not amounting nala ka dhimay laakiin percentage ahaan. Okay, general managerka alaabtana loo approve gareey waa alaab qaali ah lacagtan receipt ku keenay aan ka record garaynay original price-ki ah laakiin hadhow lacagtana naloo soo dirsaday aan bixinay. Marka hadda waxaa la rabaa inaan report garayno percentage-kii discount ahaan naloo siiyo. Okay, objective-keena intaas waaye. hal formula isticmaalaysaa aa ku abala garanaysaa, inta kaletana aa u baahan tahay keliya taasaan idin tusaaya. Equals waxaa leedahay marka 10 original price minus biilkii aan bixiyey waan isku group garaynaysaa labadan. waxaa u group garaynaysaa waxa waaye order of operation waxaa la dhahaa uu raacaa marka divided by the original price. waa taasaa formulada. intaas formuladaas waxay ku soo saaraysaa percentage discountiga lagu siiyey. waa the only that formula. Okay, isticmaashay wax kaloo too complicated stuff maada isticmaalin. interalada waa marka wuxuu dhahay waxaa lagu siiyey 10%. haddaa fiiristo waa ujeedaa 10% inay tahay meeshaan 10,000 ahayd 9,000 aa lagaa dhimay macnihii 10,000 inay tahay waa dareemaysaa waayo 1,000 ammaante ahaan aa ku baaqatay. waana ogaan karnaa equals aan leenahay. dad badanaa waxay dhahaan ma hubin karaa ma jirtaa si aan ku hubin karaa. waa hubin kartaa. waxaa leedahay ammaanta difference u baahanta taasna waxaa ku helaysaa waa taqaanaa waa the difference between these two numbers. ma fahat waa taasaa 1,000 kaa save garaysay. marka 1,000 aa save garaysay iyo 9,000 kii lagaa qaaday isku darso maxaa ku soo baxay 10,000. that marka tells you inuu tan ay saxta inuu 10% kan uu saxiya. okay, ku apply garee marka the rest of it marka waa kaa marka Samsung classka 20% discount aa lagu siiyey. kan laserjet kan waxaa lagu siiyey printerka 35. kan waa the best deal ah helna fiiri because 50% half aan bixin. original price-kii half aan nala ka siiyey, half aan nala ka noo baaqatay lacagti. waa the best deal ah helna waa kaasa 50% off. marka waxaan aragnay annagoo isticmaalayna formulada halkan ku jirto one formula oo simple ah waa taasaa. ma fahantay in aan helnay percentage-kii uu noo soo booday. marka waxyaalo badan oo ku samaysan kartaa marka shopping samaynaysa ama wax aadaysid waxyaalo badan aa ku samaysan kartaa. intaa hal mar wax formuladan waxaan qorotid shay kastoo aa soo gadanaysa aa arki kartaa. tusaale ahaan wax kalaa soo gadatay wixii kaleeto waxaa lagaa qaaday waxa kasoo bixisay $72 kasoo bixisay original price-ka lagu dhahay laakiin waxaa dhiibtay 20 aa dhiibtay. maxaa save garaysa marka 72%. sax miyaa inay sax tahay waxaa ku dareemay marka 52gan iyo 20gan isku dar. is it original price-ka ma soo baxay? waa kaa haddaan 52gan iyo 20 aan isku daro easy uma baahnid inaan hataa inta ku sameeyo maskaxdaada ka sameey ma kuu soo baxay original price-ka waxaa waa kaasa 72% macnihii discount aa lagu siiyey. waayo original price 72 ahaa $20 keliya dhiibtay 72% discount aa lagu siiyey. marka waxaan aragnay annagoo isticmaalayna formula fudud oo halkaa ku jirta oo easy ah in aan la soo bixi karno percentage kii wax nala ka dhimay. ma garatay waxaa inoo ballana next clip.